الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan u mahadcelinayaa taliyaha guud ee taliyihii hore ee guud ee ciidanka saraakiil guud Saciid Maxamed Xirsi oo aabahay ahaa oo adeerkay ahaa oo taliyahayga ahaa oo waxay soo baray oo ka dambeeyay koorsadeedii ugu horeysay oo kulliya askariga Liibiya aan u baxay 1983 taliyihii koowaad oo guddigii ka qayb qaatay oo qofkii koowaad codkiisii ahaa markii saraakiisha kulmeen mahad gaar ah u celinaya waxaan leeyahay oo xusuusinayaa waxa isbedelay waa kursi waa taliyihii hore Saciid Maxamed Xirsi iyo Cabdi Cabdullaahi wax kale isbedelay ma jiraan ciidanka intiisa kale laga bilaabo Saciid Shoodhe ilaa askariga u hooseeya shaqada sida wadan bay wadayaan waxa gaana iyo waxa fiisa iyo ciidan aniga naga dhaxeeyo xiliftan oo aan qalin warqad ku bedelayo aan dambi la imaan ma jirto laga bilaabo taliye xigeenka hawlgelinta hogaamada waaxaha laamaha abaanduulaha soori inta isdaba taxan shirarka isdaba taxan qof walba shaqadu lahaa wuu qabsanayaa wax walbana iyo hogaan walba iyo talis walbana xafiiska ugu tagay ana ugu tagay xafiiskiisa ani kay ugu maamaya waxaan raadinayaa haddii alla idmo alla ila garab galo adigu ila garab gashay in xuquuqdiina soo raadiyo aan raadinayaa haddii alla ila garab galo inaan xaqeena idin raadiyo aan raadinayaa laga bilaabo maalintaan xilka qaaday oo maalin afar ahayd oo taliyaha ciidanka ku wareejiyay waxaan u diyaar garoobaynaa dagaal waxaan u diyaar garoobaynaa dhulka inaan xoreysano baan u diyaar garoobaynaa adinkuna diyaar garooba waa diyaar garoobaynaa waa iska dhicinaynaa cadowga waana ka qabsanaynaa dhulkeena haddii alla idmo ayadana hala diyaar garooba wixii kaloo warbixina haddee xafiisyadii lahayd baan kala gelaynaa hadalka intaasaa hordhaciga ah aad baan u mahadsantihi dhammaantiin